duqeymo culus ayaa caawa laga fuliyay qaybo ka mid ah wadanka Iran iyadoo ay soo baxayaan magaalooyin istiraatiiji ah oo ay ka mid tahay Qasham in la weeraray sida uu ku waramayo telefishinka dawladda ee Iran. xiisada gobolka bariga dhexe ayaa cirka isku shareeraysa iyadoo dhinacyada kala duwan caawa ay soo saarayaan weerar aad u xoogan iyo waliba warar kala duwan. mas'uul Iiraaniya waxa uu sheegay in cadawgu uu doonayo inay isku dhiibaan laakiin taasi macnaheedu aysan ahayn dawladda Jamhuuriyadda Islaamiga ah in ay marnaba isdhiibi doonto inta xaaladdu ay sidan tahay. Mareykanka ayaa caawa fariin aad u adag u diray dawladda Iran taasi oo ku saabsan xiisada iyo xaaladda ka taagan gobolkaasi iyadoo warar kala duwan laga sheegayo in dhaqdhaqaaqyo laga dareemayo goobaha saldhigyada ah ee ku dhow jasiiradda Qubrus. dawladda Canada ayaa waxa ay si weyn u taageertay wadamada khaliijka ee weerarka lagu qaaday iyadoo dhaleecayn u jeedisay dawladda Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran. marka la fiiriyo dhaqdhaqaaqa xiisada iyo waliba dalalka istaageeraya iyo baaqyada soo baxaya dalka Jamhuuriyadda Islaamiga Iran waxa uu ekaaday madi meel taagan taasoo ku saabsan weerarka dawladda Mareykanka ay ku qaadayaan wadanka Pakistan waxa uu ka hadlay xiisada iyo xaaladda iyo mushkiladda gobolka bariga dhexe in xal loo helo. haddaba maxaan ka naqaanaa xiisadan halka ay ku dhamaan karayso maxay caawa tabinayaan qubarada siyaasadda iyo kuwa falanqeynaya xiriirka caalamiga iyo ammaanka gobolka bariga dhexena ma la oran karaa waxa uu aaday dagaal dhameystiran. war degdeg ah oo soo baxaya ayaa tilmaamaya in caawa ciidamada dawladda Mareykanku ay fuliyeen weerar cusub oo bartilmaameed ka dhan ah wadanka Iran iyadoo tani looga gol leeyahay dhaqdhaqaaqyada xiisada taagan. madaxweynaha wadanka Mareykankana waxa uu sidoo kale ka hadlay dagaalada iyo duqeymaha cusub ee ka taagan wadankan. majalada caanka ah ee The Axios ee wadanka Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in ciidamada Mareykanka ay fuliyeen weerar cusub oo bartilmaameed ah oo ka dhana gudaha wadanka Iran. majalada oo xiganaysa ila ku dhow ciidamada ayaa waxa ay tilmaantay in saacadihii dambe ee caawa la maqlay duqeymo culus oo ka dhacaya deegaano kala duwan oo ka mid ah gudaha wadanka Iran. meelaha la beegsaday waxaa ka mid ah nidaamyada difaaca meesha laga hago goobaha laga tuuro sawaariikhda kala duwan ee Iran iyo waliba goobaha ay yaalaan baaliri doomaha gaashaaman ee ciidamada dawladda Iiraaniyiintu ay ku howlgalaan ee raacsan ilaalada kacanka jamhuuriyadda. laba meel oo ku dhow baaliri marinka istiraatiijiga ah ee Baabul aan ilaahdee Hormuz sida ay qubarada caawa tilmaamayaan. dhinaca kale wakaaladaha wararka ee dalka Iran ayaa ku waramaya in gantaalo lagu tuuray jasiiradda Qasham ee wadanka Iran lama diiwaan gelin baa leeyahay wax khasaare ah oo ka dhashay weeraradii ugu dambeeyay sida ay ku waramayaan warbaahinta Iran. wakaaladda wararka ee IRNA ee laga leeyahay dawladda Iran oo xiganaysa duqa ama gafanarka gobolka Qasham oo lagu magacaabo Hussein Amiri Taymuri ayaa waxa uu tilmaamay ilaa 10 ilaa 11 ka mid ah gantaalaha in la soo tuuray isla markaana ay ku dhaceen jasiiradda Qasham galabnimadii Axadda iyo maqribnimadii maanta. Taymuri waxa uu sidoo kale tilmaamay isagoo la hadlaya wakaaladda IRNA in dhammaan goobaha bartilmaameedku ay ahaayeen kuwa military hase ahaatee ciidamadu aan ilaa iyo hadda sheegin wax khasaare inay dhasheen. waqti sii horeeya ciidamada Jamhuuriyadda Islaamiga Iran ayaa waxa ay tilmaameen in weeraro lagu qaaday goobo ay yaaleen adoomo ku dheerarsan baaliri marinka istiraatiijiga ee Hormuz taas oo Mareykanku ay u arkeen in uu qatar weyn ku yahay. taliska dhexe ee ciidamada CENTCOM ayaa ku dhawaaqaya in weerarada cusub ee ka dhanka ah Iran ay ahaayeen weerar lagu qaaday ciidamada ilaalada kacaanka kuwaasi oo doonayay in ay weeraraan baaliri ama kuwii weeraray buu yiri markabkii maanta sitay calanka Qubrus. waxa uu sidoo kale xaqiijiyay in duqeymahu ay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu bixiyay amarka ugu dambeeyay ee lagu garaacay wadankaasi Iran. ilaa iyo 140 bartilmaameed oo kala duwan ayay maanta ciidamada Mareykanku ku garaaceen gudaha wadanka Iran iyagoo meelaha ay beegsadeen ka mid ah goobaha xiriirka ciidamada iyo waliba talisyo kala duwan oo ciidamada Jamhuuriyadda Islaamiga Iran ay deganaayeen. wuxuu intaa ku daray in weerarada Iran ay ahaayeen
kuwa ka dhanaaba yiri doomaha ganacsiga sida dowladda Washington ay doodeeda u dhigeen caawa. dhinaca kale markii aad fiiriso caawa gobolka bariga dhexe waxa uu egyahay mid xiisadiisu ay sii cuslaanayso isla markaana dhinacyadu ay bilaabayaan in ay weerar kala duwan isku adeegsadaan. dowladda Iran ayaa waxay ku dhawaaqeen cadawga inuu doonayo inuu kala fogeeyo shacabka wadanka Iran iyo waliba mas'uuliyiinta sare ee dowladda gaar ahaan nidaamka. sidaas darteedna aysan hadda muuqan dowladda jamhuuriyadda Iran weeyaane iyo shacabkeedu inaanay kala fogaaneen. la taliyaha sare ee hogaamiyaha militariga dowladda Iran ayaa sheegay in dalka wali uu ku jiro xaalad dagaal sidaas darteedna dhammaan hay'adaha kala duwan ee ciidamada waa in ay ilaashadaan baaliri ku jiritaanka heegaga buuxa iyo diyaar garowga cadawga in ay ka bixiyaan jawaab xoog leh haddii weerar lagu soo qaado madax banaanida sharafka iyo qarannimada wadanka Iran. cadawgu waxa uu isku dayayaa buu yiri inuu abuuro khilaaf u dhaxeeya shacabka iyo mas'uuliyiinta dowladda si loo wiiqo midnimada qaran. waxana uu carabka ku sii adkeeyay in midnimada shacabka iyo madaxda ay tahay baaliri hubka ugu muhiimsan ee lagu wajahayo cadaadiska iyo waliba caqabadaha ka imaanaya dibadda oo dalka Iran ay diyaar u yihiin inay ka jawaabaan. dowladda Mareykanka ayaa caawa fariin aad u adag oo xasaasi ah u dirtay wadanka Iran xilli xiisada siyaasadeed iyo tan dagaalka ee gobolku ay u muuqdaan inay cirka isku sii shareereen saacadihii ugu dambeeyay. saraakiil ciidan oo Mareykan ayaa sheegay in duqeymihii ugu dambeeyay ee ciidamada Mareykanku ay ku qaadeen bartilmaameedyada ku yaala Iran ay ahaayeen fariin cad oo muujinaysa in Tehran lagula xisaabtami doono weerarada ay ku hayso maraakiibta ganacsiga ee maraya marinka istiraatiijiga ah ee Hormuz. sida uu qoray goor dhaweyd wargeyska caanka ah ee Mareykan ee The Wall Street Journal, markabkii sita calanka Qubrus ayaa la sheegay in lagu weeraray weerar gantaal iyo diyaarado aan duuliyo lahayn kuwaas oo saraakiisha Mareykanku ay ku eedeeyeen inay ka dambeeyeen dowladda Iran. warbixintu waxay sidoo kale sheegtay in Iran ay beegsatay maraakiib kale oo maraya baaliri marinka Hormuz halka ciidamada Mareykanku ay soo rideen tiro ka mid ah diyaaradihii aan duuliyaha lahayn ee bartilmaameedkoodu ahaa in lagu weeraro maraakiibta. Washington ayaa sheegtay in Iran ay heli doonto jawaabta waxa ay kasbatay baaliri haddii weeraradu ay noqdaan kuwa sii xoogaysanaya maalmaha ugu dambeeya. dowladda Canada ayaa si weyn u dhalaacaysa caawa dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran iyo taliska hogaamiyaha wadankaasi Mujtaba Khamenei weerarkii lagu qaaday wadamada Khaliijka ee sida ba'an loo weeraray. bayaan ka soo baxay dowladdaasi ayaa lagu tilmaamay Canada in ay aad u cambaareynayso falalka ay ku tilmaameen kuwa aan arxan lahayn oo dowladda Iran ay ku dhaqantay maanta waa sida dowladdaasi ay leedahay. dowladda Canada ayaa si kulul u cambaaraysa weerarka ay sheegeen in Iran ay ku hayso maraakiibta maraya marinka Hormuz iyagoo ku tilmaamay xadgudub ka dhana sharciga caalamiga ah. wasiirka amuraha dibadda ee Canada Anita Anand ayaa sheegtay in weerarada joogtada ah ee lagu bartilmaameysanayo maraakiibta ganacsigu ay halis ku yihiin amniga marinada caalamiga ah iyo ganacsiga adduunka. waxa carabka ay ku adkaysay in Canada ay garab taagan tahay dalalka Khaliijka isla markaana ay taageerayso dadaalada lagu wajahayo mawjadaha cusub ee weerarka lagu eedeeyo dowladda Iran. wasaaradda amuraha dibadda ee Canada waxay sidoo kale ku baaqday in xorriyadda isu socodka maraakiibta caalamiga ah loo baahan yahay in si weyn xilligan loo ilaaliyo. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ka hadlay weerarada ka taagan gobolkaasi iyo waliba ciidamadiisa dagaalka ay kula jiraan dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran taas oo iminka si weyn u saameysay ganacsiga adduunka isla markaana xaalad ay qaab qowsayn u muuqata gelisay gobolka bariga dhexe oo hadda wajahaya mid ka mid ah noloshii ugu adkayd. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in marinka Hormuz uu wali furan yahay carabka isla markaana maraakiibta ganacsiga ay marayaan sida uu hadalka u dhigay inkastoo ay jiraan xiisado militari oo sii xoogaysanaya sida uu doodiisa ku sheegay. Trump oo la hadlay warbaahinta Mareykanka ayaa sheegay in ciidamadu ay habeenkii hore ilaa iyo xalay weerar xoogan ay ku qaadeen bartilmaameedyo kala duwan oo Iran ku yaala isagoo ku tilmaamay in duqeymaha ay yihiin kuwa aad u culus.
sidoo kale waxa uu ku adkaystay socodka maraakiibta ganacsiga ee marinka Hormuz inaysan istaagin isla markaana dalka Iran uu iminka wajahayo cadaadis iyo duqeyn aad u xooggan. Trump waxa uu intaa ku daray in Mareykanka iyo Iran ay shalay lahaayeen heshiis isla markaana heshiiskaasi iminka uu u muuqanayo in uu hadda gabi ahaantiiba burburay. dowladda Pakistan oo ka shaqeynaysa dhexdhexaadinta gobolka bariga dhexe ee hadda xiisadaha ay ka taagan yihiin ayaa goor dhaweed ka hadashay dagaalada ka soo cusboonaaday gobolka, waxaana Islamabad labada dhinac ugu baaqday in ay si degdeg ah u joojiyaan colaadda. dowladda Pakistan ayaa sheegtay inay si weyn uga soo horjeeda baaliyiri ugana walaacsan tahay dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee sii horinaya xiisada ka taagan gobolka bariga dhexe, iyagoo ku baaqay in dhammaan dhinacyadu ay xaaladda xakameeyaan isla markaana rasaasta ay ka bixiyaan qoryaha ay dib isugu soo laabtaan miiska wadaxaajoodka. war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda amuraha dibadda ee Pakistan oo Maxamed Isxaaq Daar hogaamiyo ayaa lagu sheegay in Islamabad ay ka go'an tahay taageerada dadaalada lagu gaarayo nabad waarta iyo xasiloonida gobolka si loo maareeyo wada hadallada diblomaasiyadda. Pakistan ayaa sidoo kale xaqiijisay taageerada buuxda ee marinada iyo wadajirka dhuleed baaliyiri ee dhammaan dalalka walaalaha ah ee gobolka, iyagoo ku adkaystay muhiimadda ay leedahay in la ixtiraamo xuduudaha iyo madaxbannaanida qaranka. waa luqadii ugu fiicnayd ee diblomaasiyadda ee Pakistan ay wax ku qoraan marka la fiiriyo qaabka ay isaga maareysay in dhinacna ay la jirsato isla markaana ay dhaaftay in aanay waxba ka hadlin. ugu dambeyntii Islamabad waxay ugu baaqday dhinacyada in ay isxakameeyaan, qaataan tallaabooyin lagu dejinayo xiisadda isla markaana ay u hoggaansamaan wadaxaajoodka ku xusan baaliyiri heshiiskiisa afgaradka ah ee Islamabad si looga hortago dhibaatooyinka xoogaysanaya ee ka taagan gobolkaasi bariga dhexe.